haddaba yaa ka dambeeyay qaska arooska nasteexa indho? kani ma ahayn aroos ee waxa uu ekaa show, sababtoo ah madashan waxa ay kulmisay fanaaniin badan. ku dhawaad 20 fanaan oo heer caalami ah ayaa waxa ay soo xaadirtay howlka uu ka dhacay arooska fanaanada nasteexa indho. fanaaniintaas oo dhan lacagta ay ku yimaadeen tigidhadooda waxaa bixisay fanaanada oo arooskeeda ayay ku casuuntay. in ka badan $30,000 ayaa ku baxday arooska farxadda ku bilowday ugu dambeyntiisa fawdada iyo sidoo kale lugooyada kusoo gabagaboobay. sida loo qanado barxadaha kubadda lagu ciyaaro ayaa loo qanaday arooska oo booliis ayaa kala ceeriyay dhammaan dadkii ka qaybgalayay arooska nasteexa indho. farxad, damaashaad iyo reereen ayaa la filayay inuu kusoo dhammaanayo arooskan, hase ahaatee waxa uu kusoo gabagaboobay fashil iyo sidoo kale in booliisku ay kala ceeriyaan dadka goobta ku sugnaa. dad badan ayaa lagu eedeeyay inay ka dambeeyaan baaqashada arooskan. dadkaasi waxay heleen invitation-ka arooska oo waxay ka soo qayb galeen munaasabadda. waxaa bilowday arooskii, waxaa la shiday heesihii arooska iyo jangaladii dabaaldega. waxaa goobta ku sugnaa fanaaniinta, waxaa nasteexa ay soo xiratay taajkii arooska, waxaana arooska uu ka tallaabay qaybihii dhexe oo damaashaadka iyo sawaxanka ayay qof walba ku mashquulsan tahay. nasteexa indho ayaa gacan qaatay dhammaan dadkii ka soo qayb galay arooska iyada oo aad u faraxsan isla markaana muujinaysa farxadda arooskeeda. hase ahaatee qas, foodo iyo dhibaato ayaa ku soo kordhay. dadka qanaday arooska waxay ahaayeen kuwa ka qaybgalayay arooska oo xafladda joogay waqti ayay ku qaateen. dabadeed waxa ay isku dayeen inay qalaaso ka dhex kiciyaan arooska. dagaal iyo fawdo ayaa bilowday. waxaa durbadiiba goobta soo gaaray oo la wargeliyay booliiska, waxaana ay boolisku markay yimaadeen kadib ay qabteen dad dagaal galay oo ka mid ahaa dadka qasayay arooska iyo kuwa nasteexa indho gacan yar u ahaa. hase ahaatee ugu dambeyntii boolisku waxay qaateen go'aan, waxaana la soo gabagabeeyay oo albaabada la isugu dhuftay howlkii uu ka dhacayay arooska. waxaana sidaa ku baaqday arooskii. weji gabax iyo indho xumo ayayna aroosku kusoo gabagaboobay.